أنت dadku markay isqabtaan waxyaabo ay ku heshiiyeen oo ay dhahan dastuur baa leeyahay oo ay kala qorteen oo ruuxi garab maraa lagu qabanayo oo leeyahay adiga qodobkaas ayaa jabisay joog inaga hada muslimiin nahay dastuurkeenu ku meel gaar ma aha sida hadda Soomaalideena waxay dhahan qabyo qoraalkii ayaa socda qabyo qoraal waa wax la qoraayo oo muxuu yahay marka dastuurka ku meel gaarka ah إنك القرآن كيا دستور إنه القرآن دستورنا كمل جارنا معه ولقي وصعنا يا أصلا يا إن هجايا ونولشنا أصلا يا نهوس حرسنا وهي عن أسوي نوش شيء أو بالحرف اللي نوش شيئنا سيسنو فليننا وهي إشارة نوش شيء أو نوت المامينا سيد نوت المامي أيا نقب سنينا سيد هذا مركز الإسلام كان أقول رقمينا هذا مثلا مدة هذا يسكون على هذه الإسخلافه سو إن قلب الإسكوك قبت قلب كاس على الوقت تمثل الداعي القرآن كانوا حينوت الماء هذا الإسقابتان حكم كأتوك لبحيسان وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إلهي أي حكم كيسود كجرا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ده وحسكوك قبتان ما يسع ولا النقطة كتاب كان القرآن كأي السنة ده هذا سوق قادنه هب نولات كان أنكو قابينه اسكو مد معه حرام يا حلال سو ما تقانا القرآن كله مش شيء وحن وحلال وحن وحرام وحو إلهي حلال إن يجراه سو حلال وما يسن وحو حرام سو كم جوجنو هذا صون كي أيان كسب بحني مال أنت رمضان كله جوجو أو مال عديدا أي تاي روح عن عذر دار لهين ما دعي كرتا إنه راشين كيسكعنه أمو بيه إسكعبه وحلا مايا ومحاجر ما عنتان عنت الأنبياء ما عبد حرام يقطع أو محاجر سي حرام كعقطع هي القرآن كاشيغو إلهي وحور يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كاشيغاس marka waa xaraan hay waad mahadsantiin khayr Allah idin soo soonka waan arkin waa la wada soomay maxaa loo qaatay biyihiina la cabi karin lan cuni karin maalintii oo xaraan ay yihiin xaga wada dhaqanka iyo umada xiriirka ka dhaxeeya in la kala go'o in la kala maqnaado in la iskhilaafsanaado Soomaali soo isma khilaafsana waa isku dhacsanahay Soomaali waa iskhilaafsan yahay kulligeen soo wada meel una gaarin qoyska guriga ku wada nool ayaa fikraan kala duwan oo laga yaabo inay meel kala duwan kala taageersan yihiin waa wax iska caadi ah waa la iska duwan karaa laakiin maxaa la rabaa markaan wax isku kala duwanaano uqdad iyo isnacayb inay ma soo galin oo nabi sallallahu alayhi wasallam la yahillu uma banaana mugtahay markii midalan usul fiqh laga hadlayo waxa la yiraahdaa waxaan sheegay waa xaraan markii la dhahayo sheegay waa xaraan لفظك لو حرام تنميو وحال استعمالها وحاكمه مثلا ان الاستعمال مثلا حرمت والذين كحرام تنمي ان الاستعمال مثلا فعل مضارع او اي كهر مرتي لا الناهيه لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ان الاستعمال لفظك اذن ما بنان لا يحل ما بنانو بس شيء اسوا حرام هذا الصومالي هذا محرم اماشن كشيغو waxaan aan ka sheego inaan kala go'sanaano oo inaan waxba isku darsanin ma banaan tahay muslimiinta in saas zeelan ma banaano maxaa u daliila la yahillu uma banaano li muslim an yahjura inuu ka tago akhaahu walaalkiis oo muslimka fawqa 3 wax ka koreeya oo yaltaqiyani ay isu imaanayaan فيعرض هذا ويعرض هذا وكنا وسيجيسن كنا وسيجيسن صدح بري wax ka badan in la kala maqnaaday ma banaano Soomaali markii maqbireen kala maqnaa soo tiriyay صدح بري sod haye 30 sano intaad ka keenteen la yahillu ma banaano ar Soomaalidu fahmo badana way bedeleen laadii bay ka bedeleen laadii lay ka jareen yahillu way banaan tahay xagee ka banaan tahay la yahillu oo nabiga inooga tagay hada adii ka goynaysid laada adii ka goo ما بنانو ضد مسلمين inay isu xanaaqsanaadaan oo kala go'naadaan 3 maalmood wax ka badan maxaa loo yeelayaa hadii qofka 3 maalmood loo fasaxay waxa leeyahay hada isku dhacdaan maalinta koobaad iska xanaaqsano waa bin aadam atay qof wax ka helay maalinta koobaad hala hadlin maalinta labaad ku dar hala hadlin soo xanaaq goort maalinka saddexaad hadana hala hadlin soo xanaaq go laakiin intaas way kugu filan tahay انت وحي كسي بدن ما دعاي انت كسي بدن waxa dhacaysa labada qofi hadii ayna kulmin oyna wada hadlin oy kala maqnaadaan waxa meesha soo galay shaydaan oo ka faa'iideysanayo
labadii qof waxayna shaqo ku lahayn ayuu u kala qaadayaa ilaa isbayna arkine hebel wuxuu ku dhahay hebel wuxuu ku lahaa ma maqashay wuxuu ku yiri ma maqashay wuxuu ku yiri tiya qofka asaga la isweydiinay asaga la isu jawaabay way soconay marka dambe in la isdagaalay tagay laakiin haddii muddadii kadib la isku soo noqdo haddii doonayaan la isla hadlin laakiin la isa soo hor fariisto bas dadka wada hadalka marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa dadka iskhilaafsan marka koowaad ee la isu imaado waxaa muhiim ah inay isfiiriyaan bas yayna isla hadlin hadday rabaan maxaa dhacaya hadday isfiiriyaan indhahan waxaa ku jira sharaaraad waxaybaa is araggaas wuxuu keenayaa waa la is akhrinayaa waa la is akhriyey indhaha markii la isku qabtay waa marka koowaad kulaylaa ka muuqanaya haddana waa lagu celinaya sidii hore uu ka yidhahay sidii hadaay haddii mar kale lagu celiyo wuu sii yaraanayaa is aragga sidiisuu faa'iido badan yahay maxaa ka dhalanaysa markaas haddii gacanta la isu qaado oo yacni isa salaamo nabi wuxuu yidhi tasaafaxuu gacanta isgeliya yudhibu alghilla can quluubikum xumaantada uurkiina ku jirta way baxaysaa bal horta isa salaama marka isfiirin haddii la isa salaamo alxamdulilah suudaan mar waxaan ku baran jirin dhaqan fiican waxaan ku aragnay jumcahan oo kale hadda marka la tukado assalaamu calaykum markii salaada laga baxo lafdi ahaan moogtahay waa la isa salaamay oo adiga markaad assalaamu calaykum aad leedahay inta midigta kaa jirto oo dhan ayaad ku jeedaa oo ugu horeeya malagii midigta kaa saaraa ayaad salaanta kaga bilowday calayna wa calaa cibaadillahi saalixiin assalaamu calaykum ayaa tiri midigtaada wixii oo dhan safka dhan waad salaantay xagga kalena assalaamu calaykum waad salaantay intaas way fiicanta waa lafdigii waxay ku dareen waxay samaynayaan labada qof ee midka u dhaxeeyo xaggana wuu salaamayaa musaafaxo gacantuu gelinayaa xagga kalena gacantuu gelinayaa masaajidkii maxaa dhacaya marka laba qof oo is ag fadhido oo dhan hadday mid walba midka ku dhow uu gacanta geliyo masaajidkii kunka qof ay ku tukanaayeen gacantay iswada geliyeen waaba alxamdulilah saas daraaddeed qalbigii saafi uu noqonaya ma bilowna soomaaliya haddaan saanay bal isa salaama intiisu dhadhow waad arki doontaa nijida ka soo bixi doonta marka gacanta la gisgeliyo waxaa dhici doontaa qalbigiyaa furmaayo waa kaas midda kale waxaa mushkila inagu dhacsan tahay soomaaliya haddaan nahay muslimiinaan nahay dastuurkeenu waa qur'aanka haddaan isqaban isagaa laynoo diray xaggay ka imaatay innaga inaan isnecbaano soomaalida oo dadka ajnabiga inaga ahna ayna necbaynba hadda shir soo jabuuti maan isbuucan muuna jirin odayaashii soomaaliyeed ee dhinacyada kala duwan ka imaaday say isku ahaayeen ayaga aan niyada u wanaajinno waa isku fiicnaayeen aan iska dhahno laakiin waxay iskaga sii fiicnaayeen odayga oo etoobiya iyo duqgaabow kii maraykanka yacni wax say saaxiibo u yihiin wax xasaasiyadu ay ka qabaan male laakiin soomaali ma noqotay isriixiixa indha isku gubka iska soomaalidu ku dambeeya qur'aanka dastuurka aayadda aan furno suuratu aali cimraan waxaa ku taalla yaa ayuha aladiina aamanuu sooma wada jecelin ma qof jecelaa jira aamanadu in laga bixiyo ma jirto midaa waxoogaa wadaaddo isku yara kacsan intuu arka ya wuxuuna wadaadada ayagoo kala duwan haddana way waxoogaa way kala dhadhow yihiin qolyo waxaa jiru yidhi aamanuu aan isku khilaafsannahay kuwana waa camilu saalixaadkii aan isku khilaafsannahay aamanu waa daran moogtahay in la isku khilaafo waa camilu saalixaadkeeda waa laga heshiin karaa laakiin aamanuu haddii la isku khilaafo waa mushkilo marka aamanuu waan ku wada jirnaa yaa ayuha aladiina aamanuu ruuxii asagoo iska bixiya oo yidhahdo war dhegaysa ana aamanudii aan isku ogaan jirin hadda way jiraan kuwa soomaali ah oo aamanudii inooga baxay oo aan qarsanaynin oo facebooka soo dhigaaya oo dhahaya annaga muslim ma nihin markaas waxay ku soo qoranayaan hebel oo muslim ahaan jiray ex muslim inkaari kugu dhacday ex muslim ah ex control maqli jirnay ex muslim ma maqlnay ex muslim ay noo soo saarayaan ilaahay ex muslim nagama dhigo marka yaa ayuha aladiina aamanuu ayaan ku wada jirnaa qofkii ka baxa ma ogi marka yaa ayuha aladiina aamanuu intii isku ahow maxaa laydinka rabaa walaalaad tihiin oo maxaa u daliila inama almu'minuuna ikhwatun waa walaalo saasaan qur'aanku inoo sheegaya isna caybkan xaggee laga keenay mushkila inagu dhacday ummaddeena soomaaliyeed siyaasiyiinta kuraasta isku haysta yaa caruurtii iyo haweenkii iyo dhallinyaradii intay u kala sheekeeyeen si kursigaasi ay u ilaashadaan yaa qolada kale waxay dhaheen way idin necab yihiin waraabihii waxaa la yidhi carruurtu ismayna arkine hooyadaa isku dirtay hooyadu say u lahayd waraabo wuxun waay waraabo saan waay say u lahayd cuniga isagoon waraabo arkin wuxuu leeyahay waraabo inkaar allah ku rido wuxun waay
war maadaa arkay inuu xuyinka yaa ku sheegay hooyo ay sheegtu leh waa runtii waraabu wuxuu yahay marka waayahay siyaasiyiinta kuraasta saas ku qaatayo iska ba qaata dib male laakiin waxa su'aal meesha taala maxaad ka faa'iideen janna ma ku gasheen nolol fiican ma ku haysataan midba meel uu ku oodan yahay bis ummadiina way kala qoqobeen haddii walba kuraastaas intay kii qaatay uu wax fiican ummadda u samayn lahaa waxbay ahaan lahayd kuraastaasa la ilaalinayaa si kuraastaas loo ilaaliyana bulshadii Soomaaliyeed ee walaalaha ahayd yaa waxa la afuufayaa fitan saasi ahaan jirtay quraanku uu nooga sheekay saas oo kale aws iyo khazr soo quraan macna ansaar ninkii dhigi jiray yaa madiinay deganaayeen way islayn jireen nabiga uu imaaday wuu heshiisiyey islaamkuna ku heshiisiyey muslimay isla noqdeen muslim dadka isla noqso walaalo ma ah markaas dhalinyaro labadii qabiil ka tirsan aws iyo khazraj oo waxa la arkay wada sheekaysanaysa oo qoslaysa oo walaale islaamku walaaleeyay oo hal ku dhigoodu wuxuu ahaan jiray abiyal islaamu la aban li siwaahu idha iftakharu biqays aw tamimi hadii markaas wala soo keenay nin yahuudi wuxuu ku yiri waxa sameeysaa sim aan u kala dhantaal muslimiintan dagaalkii islaamka ka hor dhexmari jiray uga sheekay yawm bu'aatha la yiraahdaa wuu uga sheekay hadda ka hor aws intaas laga dilay khazraj intaas laga dilay wuu sheekay dadkii muslimka ah ee nabiga asxaabtiisii ah ayaaba isu kacay inay islaayaan nabiga loo soo sheegay asxaabtooda islaynaysa intuu yimid wuxuu ku yiri aw bid'awa al-jahiliyyah wa ana bayna adhurikum anoo idin la jooga miyaad maanta dib u noqonaysaan oo jaahiligiisa ay suleen jirteen oo kale aad sulaynaysaan war qabyaaladu wax ma ka jooga fiir qabyaaladu soo xunta waa nabiga jooga dacuuha fa innaha mumtina way uraysaa iska daaya markaas alxamdulillah walaalay noqdeen way salaameen shaydaanka meesha ku baxay hadda ummadda Soomaaliyeed uma baahno gobolkay dooni ha joogaan yawm bu'aath looga sheekeeyo oo leeyahay taariikhu marka inta saxiid reebila inta naga dilay annaguna intaasan ka dilnay ayaguna saasayna yeeleen annaguna saasaan yeelan yawm bu'aath la dhaha aayada ka soo degtay ilaahay muxuu yiri wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daa'an fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ساهداتكم بابي إلى هذه النار تقول هذا تذكر سؤال هذا إسلام كور يا هي كول ليه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وإسلام كور وركت جوجا معلوم أن عندك كذا مسلم وصومالية هذه لغة شيء إسلايا أو إسلايان إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا مسلم سيف سكلور يمادان لبضا من النار تيجلايان ومحا ku dhacay kan wax dilay waaba la gartay naarta xaq laakiin la dilay maxaa naarta loo geeyay innahu kaana hariisan ala qatl saahibi qofkan kale inuu dilo asbari wala laga hormaray ma ogi markii niyad xumadaas islaamku inaga xoreeyay muslimiin ayaynu nahay al muslimu aqul muslim wixii ummadda dhex marayna dadka ahlu xal wal aqd waxa la rabaa in intay tartiib wada fariistaan ay wixii xaliyaan ummadda muslimka ahna wixii isu soo dhaweynaya looga wada hadlo saasay diintu qabtaa laakiin diinta islaamka ka soo raadiya meel dhiirigelinaysa in islaamka isku fasaadiyo ma jirto waa dana yar yar oo saas marka baaq waxaan u diray ummadda Soomaaliyeed ka soo joon dal iyo dibadda jiilkan soo socda waa inuu ugu filan tahay dhibaato iyo iskhilaaf intii aan soo marnay in kale hor la hadaan ku sii jirnana natiijo ma gaarayno waan baaba'ayna dadkeenuna qaadna qaxootiye banaanka u jiraan oo kuwa banaanka jooga ogaada kuwa gudaha ku jiro ha u malayn inay janno ku jiraan kuwa banaanka jira oo waxa cabsi weyn ka jirtaa dadkeeni hadda banaanka aaday intii Soomaaliya ka baxday ee ka qaxday ee meesha tagtay islaamnimadii ayagu way ku sugan yihiin way sii celcelinayaan laakiin caruurta ay dhaleen in badan ayaguna way celcelinayaan laakiin way fafakanayaan laakiin markii odayaashu ay dhintaan hooyooyinka iyo aabayaashu ay tagaan oo dadkii meesha lagu dhalay ay awowyaal noqdaan say noqonayaan kuwaas dambe aabahaygii hore ah Soomaali ahaan jira oo muslim ka dhacays soo hadda midka Ingiriiska ra'iisul wasaaraha ka ah markii la tiri maxaa leeyahay awowgiisii labaad ayaa Turki ahaa haddana xagu jooga asaga marka dadka banaanka u baxay way og yihiin mushkilada haysata jiilka soo socda soo noqon doono waxa ka farcay marka oo gaalooba faa'iido uma ah inay gudaha ku jirnana inaga ina sugaan waxay leeyihiin wadankii ma noo xasilisaan waa soo noqon lahayna mushkilada ugu dhacay marka inagana maxaan leenahay ma soo noqotiin oo wadanka nala xasilisaan wadankii ma imaan karnee ma hagaajisaan ما هاجي كليجينا صون نقطة ما يسان كم صون نقطة كرناه وحكا قبته يعني سوقينه مجرته مركز أنجيل كاسين إنه قد يعمل أصول نقطان كو إنه جودها كو جيرنا مستقبل في عنا أيوه هلان نبض سيدي أن كو ده هني لهن أصول مالي نما أو الرادينه
cid kaligeed gaar wax u noqonaysa ma jirto midda kale mushkilada xalinteedu hal maalin kuma dhamaanayso in la bilaabo waa wax muhiim ah برينا هالوسي حجسيو برينا هالوسي حجسيو قفكي لقطه ما يو وحلا مقن ولا كينا ما إن شاء الله تعالى إنك الدستور كان وقرآن وحنا فرايا تحاكم كماشي ما كان سقبنا أن آل له ما هذا بنان كينا جاه وإنك هي الدين تاني ناس كحل سنة إن شاء الله تعالى خد بوين كينا واسلاس أيام أسي وضن دونا إلى سبحانه وتعالى كبرينا إنه تي تام يلو عافماتك وقت إلهي نسيو أنا وش أنا كسي وضنه ومدينا الصوماليات ميل والبي جرتنا إلهي قلوبتها سودوه إلهي وحي حمان دحدنا كساره ومدى الصوماليات أضياش يرضي الله يفهم سيو والدين تبنان كجرا وعروتها يعني دباتاي كايسته وحق التربيه الدين تساس الله باري uga dhigo islaamnimada Allah ugu dhawro inteena gudaha ku jirtaan dhibaatada Allah ina garab mariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadeena oo walaala oo mid oo nabad ah Allah ina tusiyo sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh